muuqaalkan ayaa baraha bulshada qabsaday dadkana siyaabo kala duwan ayaa uga hadleen gabadhan lagu magacaabo Xafsa Cabdiraxmaan ayaa waxay sugaysay inay guddoonto shahaadadeeda qalinjibinta high schoolka magaceeda ayaa meesha laga yeeliyay kadib waxay soo aaday principalka si ay shahaadada uga qaadato intii ay soo socotay ayay xogaha ciyaartay ayada oo ay ka ahayd farxad iyo dabaaldeg kadib markay principalka soo hor istaagtay shahaadadii waa loo diiday maamulka iskuulka gabadhaas waxay ku eedeynayeen in hortooda ay ku ciyaartay oo aysan munaasab ahayn in meeshaas lagu jeeso. Whose graduation was memorable for all the wrong reasons. The 17-year-old had her diploma snatched away, all because of the way she walked across the stage. The 17-year-old says the principal warned students their families could not cheer or clap when they walk on stage. And I understood the rules, so I was telling in the video, I'm like, do not say nothing because I want my diploma. I knew and understood what we were supposed to do. laakiin xaqiiqada dhabta ah duqdaas gabadha waxay u cunsuriyeysay islaamnimadeeda iyo asturnaanteeda. Imisa jeer ayaan aragnay ardada ayagoo